xogo muhiima oo la helayo sababta Israa'iil ay u aqoonsanayso Somaliland ma danta Somaliland ku jirta mise dagaalkii gobolka bariga dhexe ka socday ayay rabtaa inay dhankan u soo xawiisho geeska Afrika arrinka waan u tagi doonaa laakiin marka waxaan galaynaa dawladaha diidan arrinkan oo soo kordhaya oo aad uga caraysan arrinkan haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera waxay qoraysaa waxay leedahay eedeymaha loo jeedinayo qaraarka Israa'iil ee ixtiraafka jamhuuriyadda Somaliland in dawlad madax bannaan oo madax bannaan uu aqoonsanayo ayaa soo kordhaya haddaba midowga Afrika ayaa si cad u diiday tallaabadaasi ictiraafka Somaliland waxaana ay sheegeen midowga Afrika si buuxdana u sheegeen inay markaa iyagu ay ka go'an tahay inay ilaaliyaan midnimada iyo qarannimada Soomaaliya waa tahay Masar iyadu waxa ay telefono kula hadashay Soomaaliya Djibouti iyo Turkiga waxayna ka wada hadleen halista ka dhalan karta arrinkan waxayna si cad u diideen arrinkaasu inuu yahay mid ka shaqayn kara dawladda Saudi Arabia ayaa iyaduna war rasmi ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay inaysan waxaasu aaminsanayn oo aysan shaqayn karin in la kala gooyo Soomaaliya waxayna tiri waxaynu aaminsanahay midnimada iyo qarannimada Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa isaguna tallaabada ku tilmaamay mid khatar amni ku sii abuuri kara gobolka xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Ahmed Abul Ghaid ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii arrinkaasu markaa aadka uga hor yimid oo diiday sheegayna in ay jaamacatul Carab shir degdeg isugu iman doonaan oo markaa arrinka ay ka hadli doonaan wuxuuna sheegay inaan marnaba la aqbali karin in la kala jaro dalka Soomaaliya waaye hawshaasu marka halkaas maraysa waxaa la sugayaa midowga Yurub dawladihii Ingiriiska iyo dhanka kale waxaa la sheegayaa inay xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga uu ka soo jeedo ninka la yiraahdo Donald Trump ay Donald Trump ku cadaadinayeen muddooyinkanba inuu aqoonsado Somaliland marka waxa la sheekadan waa sheeko laga soo shaqaynayay hatta Trump markii la wareysanayay waxa la weydiiyay saldhiga ay u soo bandhigtay Somaliland badda dhinaca badda inuu ka sameeyo Somaliland wuxuu sheegay taa shaqo kuma laha arkan oo macnaha hadda hawsha kuma jirno marka arrimahaas oo dhan ayaa waxay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhay